بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشعبان 30 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. rasuulku wuxuu yidhi bisha aragtideeda ku sooma, aragtideedana ku afura. haddii laydinka qariyood arki weydaanna soddonka dhammaystira. maanta oo jumco ah waxaan soomanayn 29 galabtii jumcadu oo sabti soo galaysay habeenkeedu. bisha in la raadiyo oo la fiiriyo oo sidii saxaabadu ay samayn jireen la doondoono, sidaasaa sunnada ah. kadibna la xaqiijiyo wixii la soo sheego. hadda oo ay saacadu tahay Nairobi 9:05 fiidnimo, waxaan ku soo gaadhnay inaan xaqiijino warar naga soo gaadhgaadhaya gudaha oo sheegaya in bishii meela laga arkay. laakiin wararkaasi kulligood wax rasmi ah oo xaqiiqa amaana helin. sidaas daraaddeed caalamul islaamina intaan ka warhayno berri waa soon. annaguna insha allahu tacaala bisha soddonkeeda ayaan dhammaystiraynaa insha allahu tacaala berri oo sabti ah. ciiduna waxay inoo noqon doontaa biidn illaahi tabaaraka watacaala maalinka axadda ah, oo iyadoo aan isweydiin lahayn, maadaama berri oo sabtida soddon buuxa ay noo tahay. axaddu waa toos markaasi insha allahu tacaala ciid bay noqon doontaa. ilaahay tabaaraka watacaala nabad iyo khayr inoogu dhammeeyo bisha saacadaha ka laaban. allana tabaaraka watacaala ciid barakaysan oo wanaagsan ilaahay tabaaraka watacaala hainooga dhigo ciidan. aafaadkan iyo masaa'ibtan in haysatana ilaahay tabaaraka watacaala hainaga qaado, iyo cudurkan runtii dhibaatooyinka badan geystay. waxaan idaahay markaa ramadaan iyo khatimkiisa oo berri insha allahu tacaala aan si wanaagsan iyo caawaba u khatino, iyo ciid wanaagsan oo axadda insha allahu tacaala inoo noqon doonta. intaa iyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشعبان 30 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. rasuulku wuxuu yidhi bisha aragtideeda ku sooma, aragtideedana ku afura. haddii laydinka qariyood arki weydaanna soddonka dhammaystira. maanta oo jumco ah waxaan soomanayn 29 galabtii jumcadu oo sabti soo galaysay habeenkeedu. bisha in la raadiyo oo la fiiriyo oo sidii saxaabadu ay samayn jireen la doondoono, sidaasaa sunnada ah. kadibna la xaqiijiyo wixii la soo sheego. hadda oo ay saacadu tahay Nairobi 9:05 fiidnimo, waxaan ku soo gaadhnay inaan xaqiijino warar naga soo gaadhgaadhaya gudaha oo sheegaya in bishii meela laga arkay. laakiin wararkaasi kulligood wax rasmi ah oo xaqiiqa amaana helin. sidaas daraaddeed caalamul islaamina intaan ka warhayno berri waa soon. annaguna insha allahu tacaala bisha soddonkeeda ayaan dhammaystiraynaa insha allahu tacaala berri oo sabti ah.
ciiduna waxay inoo noqon doontaa biidn illaahi tabaaraka watacaala maalinka axadda ah oo iyadoo aan isweydiin lahayn maadaama berri oo sabtida soddon buuxa ay noo tahay axaddu waa toos markaasi insha allahu tacaala ciid bay noqon doontaa ilaahay tabaaraka watacaala nabad iyo khayr inoogu dhammeeyo bisha saacadaha ka laaban allana tabaaraka watacaala ciid barakaysan oo wanaagsan ilaahay tabaaraka watacaala hainooga dhigo ciidan aafaadkan iyo masaa'ibtan in haysatana ilaahay tabaaraka watacaala hainaga qaado iyo cudurkan runtii dhibaatooyinka badan geystay waxaan leeyahay marka ramadaan iyo khatimkiisa oo berri insha allahu tacaala aan si wanaagsan iyo caawaba u khatino iyo ciid wanaagsan oo axadda insha allahu tacaala inoo noqon doonta intaa iyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu